السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي يوتيوب كميل كسادونا دي كجوكتان وبرنامج كان حسابنا يوتيوب تري لونا يقانا سدح ليلة يعني قوة محمد شام وانت وحنو كسو قادن دونا قدباد حسابادن كاسوها سدح دنين ووتا يسان سوماليدا wargeyska ganacsiga ee bariga Afrika ka faaloodan loona yaqaano Buzzweek ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo saddexda nin ee ugu taaysan Soomaalida kadib qiimeyn uu ku sameeyay wargeysku. warbixintan ayaa qoraysa in ninka Soomaalida ugu taaysan uu yahay Axmed Nuur Cali Jimcaale. Axmed Nuur waa shakhsiga iska leh bangiga caalamiga ee Salaam isla markaana haysta lacag dhan 1.3 bilyan oo ah lacagta Mareykanka. kaalinta labaad waxaa haysta Maxamed Saciid Ducaale oo ah mulkiilaha shirkadda weyn ee Dahabshiil. محمد سعيد هانتيدا وهيسا 1.1 billion US dollar. daawade qoray waxaan kula wadaagay video kaasoo ka hadlaya saddexda qof ee ugu taaysan qaybtoodii koowaad waxaana ku soo xusnay inanka Maxamed Saciid inuu isna ku jiro dadka Soomaalida ugu taaysan hadaa tahay shakhsi aan daawan muuqaalkii hore ka eeg hoos linkiga hoose ku xusan daawana Soomaalida kuwa haysta milyanska. hadaynu eegno kaalinta saddexaad waxaa ku jira ganacsadaha reer Jabuuti loona yaqaan Cabdiraxmaan Boore. Cabdiraxmaan Boore waa maalgashade waxa uu hanti ku leeyahay wadamada kale ah Imaaraadka, Ingiriiska, Singapore iyo meelo kale oo dunida ka tirsan. Basra Cabdiraxmaan Boore waxa hantidiisa lagu sheegay in ay tahay 960 milyan oo dollarka Mareykanka. intaasina waxay ayeen saddexda nin ee ugu taajisaan qaybtoodii labaad iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee Top 3 loona yaqaano saddex leyda. aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalada soo socda iyo kanba maalin wanaagsan.